ciidamada dartaybaanahay dhulka aynu leenahay waan ku dhaadanayaayo dhigowa huraya wadani dartaybaanahay dhulka aynu leenahay waan ku dhaadanayaayo dhigowa huraya waa habeen farxadeed farxad u ah ummadda Soomaaliyeed waa habeen naxdin u ah cadawga Soomaaliyeed sababtoo ah waxa diyaar u tihiin inaad jabisaan oo ka soo guuleysataan ogaada waxa difaacaysaan ma ahan qof ama qabiil waxa difaacaysaan waa qarannimada Soomaaliyeed ogaada waxa tihiin iftiinkii ummadda Soomaaliyeed ogaada rajada dadka Soomaaliyeed oo dhan idinkeedan ku xiran tahay ogaada sida aad u dhaqantaan inay tahay astaanta dawladnimada ogaada sida hamigiina iyo hadafkiinu yahay inay tahay sida mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ay u ekaanayso ciidamada ayaa ah matalayaasha iyo rajada ummadda Soomaaliyeed taasoo ka dhigan in mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed uu ekaanayo hadba sida ay u dhaqmaan ciidanku ra'iisul wasaaraha ayaana ku buuriyay ciidanka inay isku duubnaadaan isla markaana yeeshaan hal aragti oo ah in cadawga ay la dagaalamaan si hooyada Soomaaliyeed ee ay halkaas ku dhibaataynayaan ay u hesho nabad iyo dawladnimo ciidanku waa astaanta qaranka Soomaaliyeed ciidanku waa sharafta dawladnimada ciidanku waa ilaaladii xuduudaha dhul iyo bad ee dadka iyo dalka Soomaaliyeed ciidanku waa rajada kaliya ay ummadda Soomaaliyeed leedahay dad iyo dalan ciidan lahayn macnaheedu waxa uu noqonayaa dalan dhul lahayn ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa u ballan qaaday ciidamada in madaxda dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay inay u dhameystiraan agabkooda iyo dhammaan xawqaadka ay leeyihiin si argagixisada ay u jabiyaan isla markaana ay uga ciribtiraan dhulka Soomaaliyeed isagoo saraakiisha iyo taliyaasha ciidanka kula dardaarmay inay ku dadaalaan ilaalinta xuquuqda ciidamada si ay tusaale wanaagsan ugu noqdaan in ciidamadu ay leeyihiin hoggaan wanaagsan ciidanku kama soo haro hoggaan iyo maamul kama soo haro xuquuqda dhalinyaradaas dhiigooda shubaysa si loo ilaaliyo kama soo haro in loo cadaalad falo kama soo haro in qof waliba uu dareemo inuu kan kale la mid yahay kama soo haro inay tusaale wanaagsan leeyihiin taliyaha iyo saraakiishana waxa laga rabaa inay tusaalahaas noqdaan annaga madaxdaana waxaana la ka rabaa inaan ka shaqeyno xoogga saarno habeen iyo maalin in agabkiinu iyo xuquuqdiinu idin dhameystiran tahay dhaxalkii awowgay ruwaayadu cunayaan kama dhumanaaye wanka dhiidhiyaayan dhaxalkii